annagu marka xabadaydu kugu dhacdo argagixisa geeska Afrika ka ilaalinaya waxba odhan dhulbaanta wali kula dagaalamaya laakiin dhulbaanta dhagax ma aha keligii meel taagan harti buu ka dhashay daarood buu ka dhashay Soomaali buu ka dhashay waxaan leenahay qabiil ahaan hana loogu heliyo oo dhabar jabinta uu naga filaada bal wax kale aan tarin dhabar jabinta uu ciidankan marba tukaraq laga soo celinay annagana soo halkan imanaya bal intaanu harti uu naga filaada noox hadda ayo kala khalkhalka waa lagu yaqaana waagi kal shalay aan ismudanay oo subax weerar culus aan ku qaadnay ayaa wuxuu yiri waxaana weeraray ciidamada al-shabaab new police hadaagi afweyne dad shacab ah dadaan jiiriya bisada buuriyana weeraray marka onalaf marka waxa weeye xilligan oo kale waa nin khalkhala oo khalkhalka lagu yaqaano nooxow inagu wasgaranaynaa mana tii sarkaal qiimeyn kara wax ka soo horjeeda yaa berigi waa tii lagu yiri madaafiicda buuhoodla ma dhacdo adoo jananka ciidanka Soomaaliland sheegta wixii ku qabsadana waadiga ogaa waxaad qiimeyn kari weyday ciidanka ka soo horjeeda waxa uu yahay marka reernimadaada meesha iskaga saaro waana isbaranaynaa annagu caalamka oo dhan baan yaqaana dawladda Itoobiya daris baan nahay dawladaha geeska Afrika oo dhan daris baan nahay wala macaamilaa way sognaay waska warhaynaa xulufna ku noqon maayaan xuluf siyaasadeedna ku noqon maayaan nin baa ku ah ha kugu filaado annagu ninka ku aad xulufaysanaysa marba ku soo dhiibay labada qori xogaaga rasaasta ee gabadha Saad Muuse qaba waxaan leeyahay ninkaas waa ku shaqeeyo dadka reer Djibouti ilaahay xornimo weydiinayna nimankii Ciise xornimo ilaahay weydiinayna iyaga laftoodii baa dhibaataysan waa ogne mana oranayno reer Djibouti waxa nagu sameeyay odaygaasna maskaxdii waa fadhiisatay naagtaasaana shaqaynaysa insha Allah xorriyad baan idin rajaynaynaa arrinka labaad waxa weeye ciidamadan al-shabaab baa dagaalamaysa buuhoodla fadhigeedu aha dadkoo dhan baan garanaya anaga adaa al-shabaab ta ururiya buuraha galgala adaa geeya adaa ceergaabo mariya adaa xamar geeya adaa baraawo geeya adaa kismaayo geeya adaa hubka halkan u mariya adaa Soomaali qarxiya hoygaaga wey inta hogaamiye ee ka soo jeeday saaq waa la garanayaa annagu marka xabadaydu kugu dhacdo argagixisa geeska Afrika ka ilaalinaya waxba odhan waa kugu dhacaysaa waana kugu sii dhici doontaa deegaankana annaga leh waana ku kala adkaanaynaa dilaayad waxba ha meeraysanina odhanin argagixisan geeska Afrika difaacaya qayl dhalaantaasi ku socon mayso ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedna mid baan leeyahay horta afkaarta halkan isku leenaysa waxa weeye Soomaali doon iyo Soomaali diid ummadda Soomaaliyeed waa mahad celinaya taageerada ay nala garab taagan tahay waa mahad celinaya laakiin waxaan ka doonaynaa xukuumadda Soomaaliya fikirka haysta waxa weeye Soomaali doon iyo Soomaali diid waxa lagu damaanaynayaa waa inta inuu hadalka warwareega madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee masaajidka uu ka oranayo inuu iska daayo inuu dadkan isbarbar taago waxaan ka rabnaa dawladda Soomaaliya arinta gobolka Sool inay soo fargeliso waxaan ku darayaa kale dhulbaante wuxuu yiraahdaa balaaya dagaalamaysa dhulbaanta wali kula dagaalamaya laakiin dhulbaanta dhagax ma aha keligii meel taagan harti buu ka dhashay daarood buu ka dhashay Soomaali buu ka dhashay waxaan leenahay qabiil ahaan hana loogu heliyo oo dhabar jabinta uu naga filaada bal wax kale aan tarin dhabar jabinta uu ciidankan marba tukaraq laga soo celinay annagana soo halkan imanaya bal intaanu harti uu naga filaada waxaan kaloo leeyahay daarood waxaan leeyahay war hiil baan idin ka rabnaa ma aha inaad noo helisaan isaaq iyo daarood laba ninoo mar wada yimid weeye waddanka sida la sheego waxaan rabnaa inaad noo helisaan baan idinka rabnaa inaad noogu helisaan waxa aad haysaan baan idinka rabnaa dagaalka iskaaga soo barbartaaga waxaan leeyahay oo kale ganacsigeena isaaq ku noolyahay
ganacsiga gaadiidkeenna iyo hantideenna tagta waqooyi baa isaaq ku nool yahay waxaan idin amrayaa ama idinka codsanayaa inaad gaadiidkiinna u wareejisaan dekedda Garacad oo hiilka waxa aan doonayna waxa ka mid ah inaydaan u doonanin iib u doonanin oo iib ka soo iibsan dekedaynu leenahay isaaq u cashuura waa xoolaheenna waxa laga soo iibsadaa waa waxeenna hantideennu ku nool yahay isaaq waxaan idin leeyahay joojiya gaadiidka carradaarood oo dhan gaadiidkeedu Garacad ha tago Boosaaso ha tago faraha ka qaada hawshaas hana lagu caawiyo haddaydan maaragtay si kale aydan fakarkiinu halkaa gaadhsiinayn daaroodow hana lagu caawiyo hana loogu hiiliyo in gaadiidka daarood laga joojiyo dekedda Berbera iyo wax ka soo iibsiga isaaq in la joojiyo